madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagii baaba isla yaaban waa isagoo mucaarada iyo isagoo madaxweynihii qaranka ah madaxtooyada gudaheeda ayuu isdaawanaya inta jirta dhaga ma leedahay qalbi wax xasuusto ma leedahay indha wax akhriyo oo rikoodkii hore madaxtooyada dhexdeeda uu yaala sidii loo dhaqmi jiray arkiibyada xafiiskiisa hoosteeda ku taallay yaaliin wixii dalkan soo maray oo dhan ay ku xireysan yihiin ma wiilasha intuu yeerto bal heshiiska noocaas ah warka noocaas ah shirka noocaas ah wixii ka soo baxay iyo wixii laga dood halay tuso minutes-ka yaala ma dhigi kartaa madaxweynuhu dhaga ma leedahay wax ma maqashaa ma dhagaysataa dhibka shacabka muqdisho haysta madaxweyne xasan sheekhow guddigii doorashada ee madaxweyne farmaajo uu magacaabay sidaad u diiday oo aad u tiri ma ka walaacsanin ee waa diidanahay ayay siyaasiyiinta mucaaradka maantana kaaga diidan yihiin guddiga doorasho ood adigu magacawday iyo doorashada aad wadato waxaa magacaaban guddiyada qaybaha magacaaban maamul goboleedyada qaar waa ka taagan yihiin idinkuna walaac bar qabta sidee dhihi lahayd wax la isku soo dhaweeyay walaac ma qabno waa diidanahay ma walaacsanin waa noocadii wuxuu wadadan ku soconaa waa wadadii muxuu halaaga noo horseedi lahayd waay madaxweynuhu sidoo rabana waa meeshii lagu jabi lahaa inaan gacanta ka qabano joojino joog niraana marka waa ku qasbana maantana sidaad shalay u diidanayd guddiga ayaa maantana loo diidan yahay waxaa tiri dhibaato ayay horseedaysaa guddi doorasho oo hal dhinaca dhibaatada aad sheegtay inuu dalku galo ayaa maanta lagaaga hortaagan yahay loona diidayaa guddiga doorasho ood adigu magacaabatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagii baaba isla yaaban waa isagoo mucaarada iyo isagoo madaxweynihii qaranka ah madaxtooyada gudaheeda ayuu isdaawanaya inta jirta dhaga ma leedahay qalbi wax xasuusto ma leedahay indha wax akhriyo oo rikoodkii hore madaxtooyada dhexdeeda uu yaala sidii loo dhaqmi jiray arkiibyada xafiiskiisa hoosteeda ku taallay yaaliin wixii dalkan soo maray oo dhan ay ku xireysan yihiin ma wiilasha intuu yeerto bal heshiiska noocaas ah warka noocaas ah shirka noocaas ah wixii ka soo baxay iyo wixii laga dood halay tuso minutes-ka yaala ma dhigi kartaa madaxweynuhu dhaga ma leedahay wax ma maqashaa ma dhagaysataa dhibka shacabka muqdisho haysta ma dhagaysataa dhibaatooyinka ka taagan gobolada Soomaaliya madaxweyne abaaraha ma ka warhaysaa madaxweyne silca iyo dhibaatada shacabku ay qabaan dhaga wax maqla ma leedahay qofna cayn iyo qabiil midnaba sal kuma leh barnaamijkayga ee runta ayaa la isku sheegayay madaxweynuhu maskaxdaadu ma joogtaa kulanti wanaagsan saaxiibada iga daawanaya facebookayga page-ka Cabdullaahi Balwaan aad baan idin soo dhaweynayaa soo dhawaada haddii aad ku cusub tahay page-kayga Facebook waxaan ka codsanayaa inaad soo follow garayso si aad ula socoto barnaamijyadayda aniga qabiil waa iga mamnuuc qofna qabiil kuma jecli qofna qabiil kuma necbani durbaan qabyaaladeedna inaan garaaco waa habeenka xalaya oo tagay laba qofood oo runtayda daawata ayaa igaga qiimo badan boqolaal qabyaalad igu daawada sidaa darteed runta Cabdullaahi Balwaan ugu imow soo dhawow muuqaalka noo share garee videoga like noo saar aad baan idin soo dhaweynayaa soo dhawaada dhamaantiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud guddi doorasho ayuu magacaabay wuxuu yiri u joojin maayo maamulka Puntland u joojin maayo maamulka Jubbaland u joojin maayo siyaasiyiinta mucaaradka uma joojinayo madasha samata bixinta uu hogaamiyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed uma joojinayo tiimka nabad iyo nolol uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anaa go'aan ka gaaray anaa guddigayga dhistay hal lagu kalsoonaado guddigayga doorashada hal lagu kalsoonaado ma xuma in lagu kalsoonaadee madaxweynuhu doorashada inteed ka bilowday bal arag musuqa iyo qabyaalada heerka doorasho ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo xisbigii madaxweynaha ayaa doorasho ku qabtay gudaha magaalada muqdisho durbadiiba wuxuu ku bilowday musuq iyo waliba leerush waxaan markhaati ka nahay codad lagu baahiyay baraha bulshada oo laga duubay group lagu naadinayo codka xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu bixinayo leerush haddaad moodo hadalkaygu inuu been yahay ila dhageyso ila daawo كاران قف كيرا $20 بلك حسوسيست لوقنا يسoo go hal kaaraan yaaldarki labo bonder oo damaanad leh bonder dagaala soo laabta ka hurdadooy bonder kaaraan soo dhaa kaaraan luuqa la soo galooy kaaraan iilirkeelay
صبوق لي qofka Cabdicasiis rabana isna bedel lagu rabaa luuq hayga soo waco dowlad musuqaasi ku bilaabatay oo doorashadeedu ay sidan u eg tahay oo laaluushkeedu uu heerkaa yahay ee kule qof iyo cod baan qabanaynaaye nagu kalsoonaada jawaabteedu maxay noqonaysaa doorasho noocan ah haddii lagu yiri doorashadii qarankan qabanaynaaye nagu kalsoonaada oo maanta ay marayso $2 aan bixinaynaa codkaagana si $5 aan ku siinaynaa codkaagana si yaa jooga dharkeeley yaa kaaraan jooga war codkiina bixiya oo lacag qaata haddii lagu yiraahdo ka waran doorashada nagu kalsoonaada annaga ayaa qabanayna doorasho xor iyo xalaal waxa kaloo anigu aan la qoslay la yaabay doorashada waxa la yiri waa qof iyo cod haddana waxa la yiri golaha deegaanka muqdisho qabiila lagu qaybsanaya waxaan arkay hadda liis la diyaariyay oo la yiri abgaal 128 ayuu helay habar gidir 77 ay heshay murusade 38 oo helay oo hadiiba qabiil lagu qaybsanayo kuraasta maxaa waqtiga laga luminaya madaxweynuhu labada orod midda ama dalka 4.5 ka qabo ama qof iyo cod ka qabo adigii baaba isqaldayaba intaan bab mucaaradka la gaarin adigii baa isqaldaya doorashada marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa musuq iyo qabyaalad sida aan marqaatiga ka nahay ma aha mucaaradnimo ma aha muxaafadnimo runta ayaa taas ah waxa laga yaabaa adiga daawanaya ama inaad mucaarad tahay ama inaad muxaafad tahay muhiim nooma ah wixii runa inaad indhahada ku aragto unba inoo muhiima marka madaxweynuhu ma musuq iyo qabyaalad ayaynu kaa sugnaa oon kugu kalsoonaanaa ma doorasho ku bilaabatay group laga qaybinayo $2 miyaan rajo ka qabnaayo ku sugnaa jawaabta waxaan ka rabaa saaxiibada iga daawanaya Facebook page-ka Cabdullaahi Balwaan iyo channelka YouTube-ka Cabdullaahi Balwaan waa labada qaybood oo mar walba barnaamijyadeeda aad ka daawato jawaabteeda kale idinka doonaya madaxweyne Farmaajo ayaa guddi doorasho magacaabay xilligaas Xasan Sheekh mucaarad u ahaa wuxuu yiri su'aal baa la weydiiyo nin wariyaa wuxuu ku yiri madaxweyne Xasan Sheekh ma walaac baad ka qabtaan guddiga doorasho ee dawladda madaxweyne Farmaajo wuxuu yiri maya walaac ma aha ee waa diidanahay taasoo macnaheedu yahay cod toos ah inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku diiday guddi doorasho wuxuuna cogsaday in aan lagala tashan saamilayda siyaasadda waxaa loola jeedaa mucaaradkii uu isagu ka tirsanaa wuxuu kaloo yiri madaxda Jubbaland iyo Puntland oo kamida maamul goboleedyada dalka lagalama tashan waa laba su'aalood uu waagaasi qabay madaxweyne xasan sheekh maxamuud keentay inuu diido doorashadii guddigii waday xaliimiyari ayaa hogaaminaysay ma xuma madaxweynuhu hadda guddigaaga doorashada Jubbaland iyo Puntland waxa tiri u joojinaayo guddiga doorashada adigu samaysatay Jubbaland iyo Puntland kuma jiraan waa sheekadii shalay waa dhacdadii shalay waa waxaad adigu lahayd waa diidnay bal arag haddii marka guddigii doorashada ee dalka ee shalay tiri annaga nalagama tashan oo Jubbaland iyo Puntland lagalama tashan maantana kaaga Puntland iyo Jubbaland lagalama tashan mucaaradka hadda booskii aad shalay taagna lagalama tashan marka ma kala dheeraysan tahay mucaaradka maanta jooga madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Maxamed Xuseen Roble ma kala dheeraysan tahay aan runta isku sheegnay sidee marka isku waafaqaysa shalay guddigii aad diiday in maanta aad tiraahdo lama diidi karo sidee isku waafaqaysa qaabkee la isku wajihi karaa madaxweynuhu aanu isku keenno annaga kuma necbanin annaga mucaarad kuguma nihin ee runtan kuu sheegaynaa madaxweynuhu guddigii doorashada adigu shalay diiday sidee maanta lagaaga aqbalaya maxaa yeelay ma haysatid kalsoonida madaxda maamul goboleedyada oo dhan Jubbaland iyo Puntland gacantaada kuma jiraan saamilayda siyaasadda garabka madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo garabka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma haysatid sidee marka doorashada ay ama guddigaaga doorashada oo ku shaqo galaya waa su'aal u baahan jawaab dhaba bal saaxiibada ku xiran Facebook-ga page-ka Cabdullaahi Balwaan iyo channelka YouTube-ka Cabdullaahi Balwaan waxaan leeyahay bal waa calaamad su'aale madaxweynuhu ma laan dheeranimo ayaad sheeganaysaa ma ka qabiil ballaaran tahay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ma laan dheer sheeganaysaa ma ka qabiil ballaaran tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ma ka laan dheeraysan tahay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre mase awood ciidan aad isticmaalaysaa ma cudud ciidanka qaranka ku tashanaysaa
ciidamadaadu waa kuwii ka soo cararay aadayabaal masaajid cali guduud degmada balcad halkeebaa xaalka siyaasadeed ee dalka aad awood uga raadi doontaa wixii kusoo kordha isha ku hay facebookiga pageka cabdullaahi balwaan iyo channelka youtubeka cabdullaahi balwaan insha allah intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa cabdullaahi balwaan oo idinle meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo